Saman hore oo aad u fog ayaa koox Yahuud ah waxay ku noolaayeen meel barwaaqo sooran oo dhacda xeebta badda cas, iyagoo maalinkaa sabtida u faaruqi jiray cibaadada Rabbi oo kaliya. kadib markay Ilaahay weydiisteen inuu u sameeyo una khaas yeelo maalin ay nastaan oo cibaadaystaan iyagoo aan maalinkaa camal kale qaban jirin, inay Ilaahay ugu dhowaadaan cibaadooyinka kala duwan labada gelinba ee maalinkaa mooye. waxaana la gaadhay sidii sunnada Rabbi ahayd in la imtixaamo lana tijaabiyo samirkooda iyo siday ugu hoggaansan yihiin sharciga iyo amarka Rabbi. imtixaankaas kadibna si ay u noqdaan qaar kaga sii dhigan amarka Ilaahay sidii hore iimaankooduna uu sii xoogaysto. laakiin koox iyaga ka mid ah ayaa caasiday amarkii Ilaahay, Rabbina uu lacnaday uuna dhalan dooriyay abuurkoodii si ay kuwa ka dambeeya cibro qaadasho ugu noqdaan. tani waa mid ka mid ah qisooyinka ugu la yaabka badan uguna cibro qaadashada mudan ee Rabbi ku sheegay quraanka. waa qisada asxaabu sabti, kooxdii Ilaahay caasiday ee Ilaahayna abuurkooda dhalan bedelay, kuwaasoo halaag u sugnaaday adduun iyo aakhiraba. dhacdada qisadani waxay ka dhacday magaalo xeebeed dhacda badda cas, laakiin mufasiriintu way isku khilaafeen magaceeda. laakiin Ilaahay baa u ogaal badan, waxay in badan isku raaceen in la odhan jiray magaalada Ayla, taasoo ku taalay dhulka Shaam, weliba dhanka xeebta badda cas. waxayna ahayd samankii nebi Daawud calayhi salaam. inta badan dadka degan magaaladaasi waxay ku noolaayeen kalluun jilaabashada, waxaana Ilaahay ku waajibiyey inaanay ku mashquulin arrimaha adduunyada maalinta sabtida, kadib markay iyagu Rabbi weydiisteen inuu u khaas yeelo maalin ay ku nastaan oo ay cibaadaystaan, iyagoo maalinkaa cibaado iyo inay Ilaahay u dhowaadaan mooyaane aanay arrimaha adduunyada ku mashquuli jirin. sidaa darteed Rabbi wuxuu doonay inuu imtixaamo samirkooda iyo siday ugu hoggaansan yihiin amarkiisa, in naftooda ku tarbiyadooda oo aanay ugu weynaan naftooda damaca adduunyadu. waxaana Ilaahay ku imtixaanay in kalluun ku yimaado qooriga badda maalinka sabtida, iyadoo ay fududahay ugaadhsigiisu, iyadoo ayaamaha kalena uu aad u fogaan jiray ayna aad u adkaan jirtay ugaadhsigiisu. intaa kadib koox dadkii ka mid ah ayaa markiiba niyad jabay, iyagoo bilaabay inay xeelad ugaadhsadaan kalluunka, iyagoo bilaabay inay badda agteeda ka qodaan baraago iyo godad maalinka sabtida, isla marka kalluunku galana ay ku xidhi jireen. intaa ka bacdina ay ugaadhsan jireen maalinta Axadda, isagoo markaa xaaraan xitaa ka ah. dhacdadaa kadibna dadkii magaaladu waxay u kala qaybsameen 3 qaybood: qayb caasiin ah oo amarkii Ilaahay baal martay, iyo koox aan iyagu Ilaahay caasiyin balse wanaagga fara qoladaas xumaantana ka reeba. qaybta saddexaadna waa qayb iyagu ka aamusay oo aan wanaag farayaalna aan noqon, qolada Ilaahay caasidayna aan raacin. balse qoladan dambe waxay la murmeen qoladii wanaagga farayay, qoladii caasinimada la timi, waxayna ku yidhaahdeen: maxay tahay faa'iidada idinku jirta qoladan aan weli joojin xeeladaysigii ay wadeen iyo caasinimadii? waxaana ku soo degi doona cadaab dhanka Ilaahay ka yimi oo daran. faa'iidana idinkuma jirto inaad waanisaan iyagoo Ilaahay u qoray inay halaagsamaan. laakiin qoladii iyagu wanaag farayaasha ahaa waxay ugu jawaabeen: annagu waxaanu gudanaynaa waajibaadka naga saaran inaan wanaagga farno, xumaantana aanu ka reebno, si aanu Ilaahayna u raaligelino iyo si aanay xujo noogu noqon maalinta qiyaame. waxaana laga yaabaa in kelmadaha yagaasi u sabab noqdaan hanuunkooda oo ay xumaantana ka tagaan. waxayna ahaayeen qaar kuwaaniya inay ka soo noqdaan xumaanta ay ku jiraan, iyadoo qoladii Ilaahay caasiday ay sii wadeen xeeladaysigoodii, hadalladii mu'miniintana aan dheg u dhigin, ilaa markii dambe amarkii Rabbi yimi, cadaabkiina ku soo degay qoladii alla caasiga ahaa, Ilaahayna badbaadiyey qoladii wanaag farayaasha ahaa. iyadoo quraanku ka aamusay halkay ku dambeeyeen qoladii saddexaad ee iyagoo aan caasiyiinta ka mid ahayn, lana socon qolada iyagu wanaag farayaasha ahaa, wuxuuna ahaa cadaabka Ilaahay mid daran. waxaana Ilaahay ku ciqaabay in qoladii caasinimada la timi u bedelay daanyeero, kadib markay ka soo noqon waayeen kana toobadkeeni waayeen caasinimadoodii. waxaana la yidhi Ilaahay baa u cilmi badan, arrinkaasi wuxuu dhacay maalintii ay isugu iman jireen golayaashooda, oo intii dembiga ku dhacday maalinkaa may iman golayaashii iyo meelaha isugu iman jireen.
dabeed way yaabeen dadkii waxayna damceen inay soo eegaan waxa ku dhacay qoladii waxayna arkeen iyagoo noqday daanyeero oo ilaahayba u dhalay bedelay abuurkoodii waxaana uu aqoonsaday mid walba oo ka mid ah kuwaas ilaahay dhalan bedelay qof kasta oo ehelkiisa ah iyadoo kii kasta intuu u yimi ka ag ooyay iyadoo dadkii ilaahay badbaadiyeyna ay ugu jawaabeen miyaan laydinka reebin inaad joojisaan caasinimada waxayna ugu jawaabeen haa iyagoo madaxa ruxaya laakiin samee aqoonsan dadkii ilaahay adeecay ciddii ay isku ehelka ahaayeen ee ka midka ahaa qolada ilaahay ku soo rogay ciqaabtan daran muddo kadibna dhammaan way wada dhinteen qoladii ilaahay daanyeerada u bedelay iyagoo aan wax taran ah ka tegin tanna waxa xaqiijinaya waa xadiiska muslim ee uu soo wariyay cabdullaahi bin mascuud ilaahay raalli ka noqdee ee uu yidhi nin baa yidhi rasuulkii ilaahay oo daanyeerada iyo doofaarada ma dadkii la masakhay ee la abuur bedelayba yacni ninku wuxuu u jeedaa daanyeerada iyo doofaarada maanta dunida ku nooli ma taranta dadkii la abuur bedelayba waxaanu nabigu ku yidhi sallallahu calayhi wasallam ilaahay kamuu reebin umanuu samayn qof qura oo la abuur bedelay awlaad iyo taran daanyeerada iyo doofaaraduna iyaga hortood bay jireen waxaana imaamu nawowi isagoo sharaxaya xadiiska nebiga uu caddeeyay in intaan qoladaas reer bani israa'iil la abuur bedelin ay jireen doofaarada iyo daanyeeradu tani waxay ahayd qisada asxaabu sabti kuwii ilaahay caasiyay ee rabbina masakhay ama abuurkoodii dhalan bedelay qisadii ayaad jeclaan lahayd inaynu barnaamijkeennan ka xiga kusoo diyaarino